السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة كريم، جمعة مبارك. أصحابتي إذا جعلها ميل والبو الدنيا دك جوكتان هدي أنا نقول صبتاي فضلا نو سبسكرايب كريب يوتيوب waxaana YouTube-kan kusoo gudbinaa barnaamijyo aad muhiim ugu ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddii aan ku horeeyo maanta barnaamijkeena, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay aqbashay inay wada hadal la furto dowladda federaalka Soomaaliya. Hakan Fidan ayaa ku sugnaa isbuucii la soo dhaafay dowladda Itoobiya, taas oo kala hadlay in wada xaajood loo furo dowladda Itoobiya iyo tan Soomaaliyaba. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay madaxbannaanida iyo midnimada iyo dhulka Soomaaliyeed. sidoo kale dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay u baahan tahay deked, taas ay doonayso inay wada xaajood kala furto dowladda federaalka Soomaaliya. Itoobiya ayaan ogsoonahay inay horay heshiis ula gaartay maamulka Somaliland, taas oo ay ka biidiiday dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Itoobiya ayaa ku celisay inay u baahan tahay deked, taasna waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka Soomaaliya haddii ka aqbali doonto iyo haddii ka diidi doontaba. laakiin dowladda Itoobiya waxay si cad u sheegtay inay kansali doonto heshiiskii ay hore ula gashay maamulka Somaliland. Hakan Fidan ayaa aad ugu dadaalayay inuu wada hadal u furo dowladda federaalka Soomaaliya tan Itoobiya. wayna arki doonaa maalmaha soo socdo iyo wixii ku soo kordha wada hadallada dowladda Itoobiya iyo tan Soomaaliya dhexmari doono. waana soo dhaweynaynaa wada hadalkaas iyo wixii ku soo kordhaba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.